waxaa saacada ka hor soo dhammaatay codbixinta doorashada madaxweynaha ee jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyada oo tirinta codadku ay bilaabeen guddida doorashadu. haddaba sidii codbixintu saaka u dhacday waxaa warbixintan noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad. waa berigii ilaa gabaldhicii waxa ay ku jireen safaf dhaadheer kulaylkana way u adkaysteen si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. waxaanu soo kalay saddex nin oo isaysteen kala saaro ammaankaygana ilaashado waddankana ilaashado kii laga helana arunta u sheego ka helana kursiga geeyo ayaa saaka soo kalay. waxaanu soo kacnay inaanu doorano madaxweyne Ilaahay noo soo saaray annagu maxay ahayd kolba ka hela ayaa looga dagaal looga tanaasulaa jamhuuriyadda yar Ilaahay nabadgelyo la siistay Ilaahay ictiraafay baan nahay caalamkana ictiraafkii uu diidan yahay caalamka Ilaahay waxaanu ka doonaynaa in ictiraafaan. Faarax waa naafo balse waxa uu rajaynayaa inuu codkiisa wax kaga bedelo aayihiisa dambe. waxaan ugu codaynayna oo aan u soconnaa way dulmayn dadka naafada waxay ku dulmayn xagga maamulka waxay ku dulmayn xagga shaqada marka sida la ajligeed ayaanu doonaynaa inaanu xaqayaga ku helo doorashadan. goobtani waxa ay ka mid tahay 1642 goobood oo kale oo laga codeeyay. kasokow in doorashada muwaadiniinta codkooda dhiibanaya ay ku kala duwan yihiin musharaxiinta tartamaya ee ay u kala codeynayaan iyo taageerada ay u kala hayaan mid baase jirta oo ah inay ka midaysan yihiin inay doorashadan ay tahay mid ay doonayaan in indhaha caalamka ay ku soo jiitaan taasi oo ay ka rajaynayaan in ay ku helaan aqoonsi caalamiya. madaxweynaha iyo saddexda musharax ayaa ka codeeyay hal goob iyaga oo muujinaya midnimo waxayna shacabka ugu baaqeen inay dhowraan ammaanka. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. iyadoo imika haddaba ay xawli ku socoto tirinta codadku ayaa goor dhaweed halkii ugu dambeysay ay wax marayeen waxaa iga warramay wariyaha telefishinka BBC da Cali Nuur Salaad. guddiga doorashooyinka qaran ee Somaliland oo wax yar ka hor shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada Hargeysa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen in codayntii ay soo gabagabowday sidoo kale isla goobta waxa ay ka shaaciyeen in meelaha qaar ay ka bilaabatay tirinta codadka taa oo ay ku sheegeen in ay waqti dheeraad ah ku kasban doonaan. guddigu waxa ay shaaciyeen in ay aad u yaraayeen shilalka iyo qaladaadka doorashada ee codaynta maanta ka dhacay. waxaa iyana wax yar ka hor hirgalay guddiga hadalkii uu horey u sheegay oo lagu mamnuucayay baraha bulshada gebi ahaan Somaliland oo dhan. waxaa iminka aysan suuragal ahayn dadka ku sugan Somaliland in ay helaan ama ay booqdaan ama ay baahiyaan warar ama sawirro ama muuqaallo iyaga oo isticmaalaya baraha bulshada. sidoo kale guddiga waxaa la weydiiyey shilal ka dhacay hadaaftimo oo ka tirsan gobolka Sanaag. waxa ay sheegeen in gebi ahaanba wararkaasi aanay jirin iyaga oo soo hadal qaaday in halkaasna doorashada si loogu talagalay ay codayntu uga dhacday isla markaana wararka ay helayaan ay sheegayaan in tirinta codadku ay halkaasi ka bilaabatay. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan doorashada Somaliland iyo wararkii ugu dambeeyay waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga.